Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate, walaalayaal soo dhowaada, ku soo dhowaada qalbi furan, ku soo dhowaada gacmo furan, ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya. Haddaba walaalayaal, sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah. Walaalayaal ku soo dhowaada, daawasho wacan, ka faa'iidaysi wacan. Waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allahu tacaala. Walaalayaal, waxaa iib ah guri fillo ah. Waa guriga hadda ee kaamirada hayso oo qolka irid banaanka ah leh, albaabka gaduudan. Waa guri si fiican u dhisan oo heer sare ah, meel fiican ku yaalla. Soo dhowaada walaalayaal, waxaan guda galayaa xogta gurigan fillada ah ee iibka ah oo dhammaystiran, ka bogasho wacan. Haddii aan ku bilaabo, gurigan fillada ah waxa uu ku yaallaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishona waxa uu uga sii yaallaa degmada Wadajir, waa Madiino. Degmada Wadajirna waxa uu uga sii yaallaa xaafadda Korontada. Korontada waa xaafad weyn oo magac leh, laga yaqaano degmada Wadajir iyo dhammaan gobolka Banaadir. Waxaa ku yaalla isgoyska Korontada. Marka gurigan xaafadaas ayuu uga yaallaa degmada Wadajir. Korontada markaad joogto isgoyska ayaa waxaa usoo leexanaysaa laamiga aada dhankaas iyo Jaziira, waana laamiga hadda aan idin tusaynay. Marka walaalayaal, gurigan fillada ah laamigaas ayuu wuxuu ka yahay Brimo Boss. waa fillo saaran laamiga. Sidoo kale haddii laga soo tiriyo laamiga kale ee suuqa weyn aada ee degmooyinka Wadajir iyo Dharkeeley ee Madiina loo yaqaano dhexmara, waxa uu ka yahay laamigaas ama isgoyska Korontada uu ka yahay gurigani booska 6aad. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo cabirka gurigan iibka ah, waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 20x10 finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida ay u yaqaanaan. Waa cabir weyn. Sida haddaba aragtaa, waxaa ka dhisan guri fillo ah oo dhammaystiran. Si fiican ayaad u wada arki doontaan haddii Ilaahay idmo. Walaalayaal, gurigan fillada ah waxa ay ka kooban tahay qolal ahaan 5 qol. Qol waa irid bannaan sida haddaba muuqaalka ka aragteen, iyo 4 qol oo kale. Sidoo kale 2 suuli ama musqul. Sidoo kale jiko. Waa guri dhammaystiran. weliba gurigani si fiican ayuu u dhisan yahay. Derbigiisa waa derbi aad u xooggan. Barandada shubka ah ayuu leeyahay sida haddaba aragtaan. Waa guri si qurux badan u dhisan, si tayo leh u dhisan, oo guri adag ah. Dhismihiisa uusan duug ahayn, waa dhismo yara cusub sida haddaba aragtaan. Laakiin waa guri la deganaay ama la degan yahay. Guri hadda farta laga qaaday ma aha, laakiin waxa uu dhaamo ma jirto. Si casriyan waa u dhisan yahay. Soo dhowaada walaalayaal, inaad si fiican ila socotaan ayaan rajeynayaa. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo jidadka gurigani uu leeyahay, waa guri hal jidle ah. Waxaa hormara wadada laamiga ah ee Korontada ka timaada, laakiin waxaa sidoo kale u dheereen laamiga kale ee Korontada, isgoyska Korontada ee wadaagta ka yimaada ama dhankaas eelaboorka ee taga ilaa
saldhig galbeed iyo xoosh. marka waa dhul laba laami oo waaweyn u dhexeeya, laakiin wadada oo berimada ka yahay wuxuu ka yahay hal jidle. dhinacyada waxaa ka xiga iyo gadaalba guryo dad ama dhul. dhinaca u jeesanaya walaalayaal haddii aan ka hadlo waa galbeed ujeed. marka waxaa dhahaynaa hal jidle galbeed ujeed ah, isgoyska korontada ka ah booska 6. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dukumiintiga, gurigani dukumiintigiisa waa nadiif, waa dukumiintiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. warqadaha dhanna way u dhan yihiin, rasiid, sabarloog. waa dhul dukumiinti nadiifsan oo ansaxa leh, nataaya alla mid aragtid aad ka wareegsan kartid. guri qurux badan iyo waxaa isku helaysaa sharci fiican leh, laami saaran, wax badan kaa anfici kara. guriga derbiyadiisa ay qurux badan yihiin, u taagan yihiin, waad ujeedaan. marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta, yaa laydinkaga hormarin. haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha oo iyadana fursad kale ah, walaalayaal gurigan qiimihiisa waa macquul. waxaa lagu rabaa $120,000 Mareykanka ah keliya, macal dalaal ah iyo heshiis. marka soo dhawaada, runtii qiimahaasina waa u qalmaa, maxaa yeele waa guri dhisan oo si fiican u dhisan, haddana laami birima ka ah, cabirkiisa oo macquul yahay, oo haddana lacagtaasa magaalada kuma badna. marka waa fursad. duruufo in la seegada ayaa laga yaabaa. soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta. lacagtaas aan idiin sheegay 120 ahna waxaa ka furan heshiis. wixii macquul ah waa laga dhimayaa insha Allah. haddii gurigan lagu soo tusiyo oo aad ku qanacdid, waa laga faragelinayaa. si fiican ayaa lagu soo dhaweynayaa, qiimo ku soo dhaweynayo ayaa lagu heshii doonaa insha Allah tacaala. walaalayaal haddii aan ka hadlo ugu dambeyntii waxyaabaha oo gurigan idinka anfici karo, gurigan wuxuu idinka anfici karaa deegaan. waa ujeedaan guryaha ku dhagan kulli waa guryo deegaan ah. xaafadan laamiga aad ayaa loo degan, guryaha laamiga saaran oo dhan waxay u badan yihiin guryo deegaan ah. maxaa yeele laamigan marka hore jacadda ayuu ahaa, mar dambe ayaa laami laga dhigay. marka cidihiina sidii ayay u degan yihiin. sidoo kale waxa uu gurigani ka anfici karaa ganacsi ahaan. weliba qol banaan ah ayuu leeyahay, goobo ganacsi ayaa laga dhigi karaa, goob waxbarasho oo kale iyo wixii la mid ah, xafiisyo kale. marka labadaas arrin waa idinka anfacayaa. sidoo kale maalgashi ahaana waa idinka anfacayaa. waxaa u maalgashan kartaa habka kirada ahaan, inaad gurigan kireysatid. guri dhismo u baahan ma ah, waa guri dhisan oo diyaarsan, hore laga degaayo. kiro fiican ayaana xaafadan leedahay, kiradeeda waa qaali. marka lacag fiican ayaa kaa soo galaysa oo biil xataa inay kugu filnaato laga yaabo. sidoo kale dhul lacag ay ku kordhi karta, waa maxaa yeele laami weyn ayuu saaran yahay. goobo ganacsi ayay meeshaan dhaqan kartaa, sababtoo ah isgoyska ayuu ku dhow yahay. meelaha isgoysyada badanaane shirkadaha, carwooyinka, waxbarashada, hay-adaha dhan way degaan. waxaa intaas kuu sida inuu suuq weyn oo ku dhow yahay. dhankan kale haddana eraboorkii iyo waxaa ku dhow xalane iyo xeebta. marka waa dhul fursad ganacsi ah oo weyn weliba. soo dhawaada walaalayaal, lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira haddii aad dhul u baahan tihiin. soona Madiino, Wadajir, Dharkeenley inana soo xiriira haddii aad dhul ku leedahay, waa lagu iib geynayaa insha Allah. dhismo hadii aad u rabtid dhulkaaga sidoo kale waa ku dhisaynaa. walaalayaal ugu dambeyntii waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana afurataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelino insha Allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.